Assalaamu calaykum ku soo dhawaada daawadayaal channelkeena aragtida maanta muuqaalkeena maanta waxaan ku sharxi doonaa qaabka loo jilay ama loo sameeyay filimka Squid Game oo noqday midka loogu daawashada badnaa sanadkan sii dhamaanaya ee 2021 Squid Game waa filim South Korean ah oo soo baxay sanadkan aan ku jirno ee 2021 waana filim adduunyada oo dhan qabsaday oo laga daawaday in ka badan 94 wadan. Squid Game waa filim ka kooban ciyaaro isxixiga oo uu ciyaarayo qof kasta oo qayb ka ah samaynta filimkan. Qofkii ciyaarahaas ku guuleysta ayaa helaya lacag aad u tiro badan oo abaalmarina. Qofkii ku guuldareystana waa uu dhimanayaa. Muuqaalkan waxaan ku sharxi doonaa qaabka loo duubay filimka iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee ah inaan ka ogaano filimka Squid Game sida jilayaasha filimka in ay jilayaan ciyaaro dhimasho ah iyagoo nafsadooda ka badbaadinaya dilayaal ay ku jirto bombale aad u weyn iyo qaabka loo jilay oo aan wax badan ka ogaan doono iyadoo aan la isticmaalin qaab kombiyuutereedka filimada lagu sameeyo ee loo yaqaan CGI ayaa waxa la sameeyay sawirro iyo farshaxano si loogu qurxiyo muuqaalka guud ee filimka iyadoo loo ekaysiinayo muuqaalo iyo goobo xaqiiq ah oo aad u qurux badan gaar ahaan marka goobaha qaar loo ekaysiinayay in lagu duubay meel dibadda ka ah ama ka baxsan goobta filimka lagu jilayay markii la duubayay qaybta xarijiidka Tug of War waxay u egtahay in ay fududahay duubitaanka balse shirkadda samaysay filimkan ee Netflix ayaa dhistay goob ballaaran oo loogu talagalay in lagu ciyaaro ciyaaraha xarijiidka iyadoo dhismaha laga soo bilaabay meel eber ah goobtan loo dhisay xarijiidka ayaa ah goob jilayaasha aan waxyeello ka soo gaarayn marka ay sameynayaan xarijiidka iyo dhammaan ciyaaraha ku dhisan awoodda jirka goobta ay jilayaashu jiifanayaan ayaa ah goob aad u weyn aadna loo xardhay iyagoo dareemaya sida in ay joogaan tiyaatar sariiraha ay jiifanayaan jilayaashu ayaa ah kuwa la iskor saaray waxaana lagu xiray samaacado ay kala soconayaan ogeysiisyada sida cadadka lacagta ay helayaan iyo waxa ay tahay inay sameeyaan waqtigaas kooxda farshaxanka iyo hal abuurka filimkan ayaa ka shaqeeyay inay isku keenaan dhammaan goobahan iyadoo laga dheehanayo shaanshado waaweyn oo lagala soconayo dhammaan dhaqdhaqaaqyada ciyaartoyda jaranjarooyinka quruxda iyo midabada badan ee ka muuqanaya filimka Squid Game ayaa looga daday farshaxan jaranjarooyin isku eg oo caan ah oo loo yaqaano Relativity taas oo hore u nashqadeeyay farshaxaniista u dhashay wadanka Holland kaasoo lagu magacaabo Mikesher kooxda farshaxanka iyo hal abuurka filimka Squid Game ayaa u arkay in jaranjarooyinkan quruxda iyo midabada badani ay dadka ku dhiirigelinayaan inay taxanaha filimkan sii daawadaan waxaana sidoo kale ka turjumaya maskaxda iyo hal abuurka filimkan la geliyay garoonka caruurta ee lagu ciyaarayay ciyaarta sonkorta laga sameeyay ee loo yaqaan Honeycomb Game ayaa laga dhigay qalab aad u weyn oo aan ahayn midka caruurta lagu ciyaarsiiyo kaasoo lagu xardhay sawirro sida caadka u eg oo mala awaal ah kuwaasoo lagu arko buugaagta caruurta waxaa sidoo kale mudan inaan wax ka ogaano dilaaga halista ah kaasoo ciyaaryahano badan dilay inta lagu guda jiray ciyaartii Red and Green Light ee bilowga filimka bombalaha aadka u weyn ee ka dhex muuqanaya filimka ayaa ahayn mid loo sameeyay kaliya filimka balse waa mid hore u jiray bombalahan oo loo yaqaan Magunkwat ayaa yaalay madxafka weyn ee South Korea bombalahan ayaa dib loogu celiyay madxafka kadib markii filimka duubitaankiisa la dhameeyay si ay dadku u daawadaan waxaana la arkay in ay maqan tahay mid ka mid ah labada gacmood ee bombalaha oo loo maleeynaya in ay luntay goortii filimka la duubayay goobta lagu ciyaarayay ciyaartii baliisha ayaa dhammaan la dhisay iyadoo ugu dambeyn noqotay goob aad u qurux badan oo soo jiidatay daawadayaasha filimka directorka filimkan oo lagu magacaabo Han ayaa u arkay inay muhiim tahay in la dhiso goob xaqiiqiya oo lagu jiro filimka si dadka loogu muujiyo waxtarka iyo hal abuurka jilayaashooda iyadoo aan la isticmaalin sawirro iyo muuqaalo lagu sameeyay kombiyuutar oo aan xaqiiqi ahayn muuqaalada xaqiiqda ah ee aan kombiyuutar loo isticmaalin ee filimkan ku jira waxaa tusaale u ah ciyaartii ugu horeysay ee Red and Green Light taas oo isku keeneen in ka badan 400 oo ciyaaryahan oo filimka wax ka jilayay badanaa filimaanta noocaan ah ayaa dadka tirada badan loo isticmaalaa kombiyuutar si loo badiyo tiradooda arrinta cajiibka ayaa ah in filimkan dhammaantiis lagu jilay hal goob waliba hal magaalo oo lagu magacaabo Daejeon taas oo hal saac u jirta magaalada Seoul ee caasimadda South Korea magaaladan ayaa ah magaalo filimaan badan lagu jiray waxayna markan hoy u noqotay filimka Squid Game
maadaama aan safaro badan la gelin oo hal magaalo lagu jilayay ayaa budgetka filimkan sare loo qaaday iyadoo looga faa'iideystay in la dhiso goob kasta oo loo arkayay in lagu jili karo qayb filimka ka mid ah waana midka filimkan ka dhigtay inuu noqdo mid hid ah oo uu yeesho shacbiyad badan daawade fadlan subscribe noo saar janaalka si aad ula socotid muuqaalada xiisaha badan ee aan halkan kusoo gudbino like-ta iyo share-tana ha naga ilaawin mahadsan